runtii biyaha dee aad ayaa looga hadlay biyuhuna waa nolosha noolaha oo dhan runtii waxa weeye adduunku maanta dagaalka saddexaad wuxuu ka dhacayaa waxa leeyahay waa biyaha marka biyuhu waa laga maarmaan nolosha noolaha horumarna la'aantood ma jirayso dadku horumar biyo la'aan ma gaadhaan adduunku maanta waxa uu ku tartamayaa biyaha iyo tamarta haddii labada nolosha aan la helin horumar ma jiro runtiina aad ayaa looga hadlay biyaha waana wax u dheer in hortaagan ee dhibaatada dadka bini'aadamkii had iyo jeer focuska waxa ay saaraan de waxa hor dhibaatada markaa haysa biyuhu waa waxa aad naga hadlinaya ee maanta waddankeena ka taagan ee caasimadeena aanay biyo u lahayn oo ma garanaysaa de 30 sano aynu biyo u samayn kar weynay inkastoo iminka dadaal badan la sameeyay oo madaxweynaha iminka jooga u dhaamanka aad u wacyigeliyay oo dhaamo qoday waxa loo baahan yahay marba in ma garanaysaa magaalada hareeraheeda dhaamo fiican laga qodo xilwaanada horena wuu sheegay si looga dhaansado oo marka loo qaybiyo dad ilaaliyo oo marka mahdi biyo la waayo dhulka hoostiisa laga keeno magaalada ku filan taa waa bogaadinaya xilwaanaduna way soo jeediyeen waxaan leeyahay in dhaamanka la xoojiyo mar haddii biyo kale la waayay oo hadda dawladda barnaamijkeeda uu ku jiro oo wado madaxweynuhu aad nooga hadlay meel kasta ama miyi ha ahaato ama magaalada Hargeysa ha ahaato runtiina dadka ugu badani de magacaasiyada ay ku nool yihiin haraad baana dadkii gebigooda dadka fakaraya waxay cabaan deen horumar ma haybinayaan wax cabaan dadaan haysan sida ogtihiin dadka danyarta ahi dee biyaha ma iibsan karaan hooyada waa ogtihiin foostadu intay marayso cid walba u Hargeysa joog ka dhigsan tahay marka runtii baahi ka weyn oo maanta in haysa biyo la'aan ma jirto markastana abaaro ayaan ka cabanaynaa cimiladuna maanta adduunka isaga way isbedeshay roobka waa yaraadeen wax badan baa soo kordhay dhulkii xaaluf ku noqday markii roob la waayay xoolihii way yaraadeen marka in la isku tashado oo ay dadku ka fikiraan sidii ay uga bixi lahaayeen waxaan aad iyo aad ay laga maarmaan u tahay oo maaragtay laga fikiro marka runtii wax soo jeedinaya in dadaalkeena aynu si lama laabno oo dhaawankaasna aad iyo aad ayaa imka loo wadaa runtiina waa qorshe fiican oo ay dawladdu wado oo in magaalada hareeraheedana dhowr loo qodo ilaa 7 ilaa 8 oo la ilaaliyo oo dad ilaaliyo loo sameeyo oo booyadu ay ka dhaamiyaan taasa ayaa u eeg wax loo jigo oo imka laga bixi karo biyo la'aan laakiin wax kale oo biyo badan baynu raadinayno oo de qorshe kale oo aynu leenahay oo aynu ka fikiraynaa wuu jiraa laakiin had qorshaha dhow taa dhaawanka ayaan aad isu bogaadinayaan